السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليك وهذه السلامة ولا شيء نشوف MBR هالكا دقة دعوانا سنة MBR قروح دمر سودا وهذا قاعد مفرق قلب فرنية سافئة عاوة برنامج كين هيلوين دي سبسكرايب إن شاء الله. عاوة وحو برنامج كين وكوس عضاء قبلها الصوماليات عدو بيسكوه قبلها الصومالي عدو آنين iyo ayaka aan ahayn malaha gabadha Soomaali waxa cadow ku ah gabar kale cadow ku ah iyo ninka qabo baa cadow ku ah nolosha gabadha Soomaaliyeed maanta caqibad ku haysato wax kale ma aha maanta markaad baraha bulshada afiiriso gabdhii way is aamini laayihiin way isku kalsoonaan laayihiin way dhibaataysan yihiin way isnacab yihiin gabadha Soomaalida cadow aan gabar kale ahayn malaha waxyaabaha ay maanta cadow iskaga dhigteen haday is caynayaan haday is aflagaadeynayaan haday wax iska sheegayaan nin unbay wax iskaga sheegaan wax kale male xoolo isku ma haystaan maataan business iskaga lama dhaxeeyo cadowtinimo jirka ay gashteen unbay gabdhihii Soomaaliyeed maanta ay cadow iskugu yihiin maalin dhaxdaas waxaa dhimatay Ilaaha u naxariista gabar Soomaaliyeed ba istishay kuwana iyada way ku horeeyeen kuwa badanna wadada way ku soo jiraan gabdha Soomaaliyeed maxaa idin dan ah maanta gabadha Soomaali waxa dilayo oo silcinayo oo maanta maartay ay la noqotay wajigeedii jirkeedii la bedelmay madaxeedii maartay nooc kale la noqday waa ilmo waa nin waa naakale waxa maanta gabdhihii maanta depression ku wada riday waa nin iyo ilmo nin suu abuse ay u oynaysay financially emotionally physically intaba intuu ku abuse guri iska dhax fadhidaa markaas ay leedahay ilmihii hadaan ka tago ilmaha yaa ii beeli hadaan ka tago ma nin kale dhax keeni kara si waxaan ku dhasaas u oynaysaa ay hooyo waxba u sheeganeen ay aabo waxba u sheeganeen ay ehel waxba u sheeganeen oo walaal waxba u sheeganeen oo dibkeedii oo dhan ayda qarnaysaa markaas ninkiina markuu banaanka u baxo gabadhii aan bil fiican siineen arad bax siineen aan ka warheenin ixtiraameen respect gareyneen hadalka ka xun afkiisa uga soo baxayo gacan haduu rabo ugu daray u qaadayo dhibaato dhan ku haysato baa banaanka markuu maray shaatigiisa uu cadiyaa hebel meesha soo degan yahay hebel ay u qabaayo inta soo ciyaala u joogto guurka markuu ilaahayga waaxid ka weynaa uu sunno ka dhigayay oo ilaahayga waaxid ka weynaa uu dhahayay isguursada qofka muslimka markuu guursado diintiisa way dhameystiran tahay guurka iyo nolosha waa muxubbo raaxo iyo nasteexo ma aha guurka meel la isku abiyuuso wuxuu ilaahayga waaxid ka weynaa furiinka u baneeyay oo furiinka u soo dajiyay asagoo furiin nacab wuxuu ilaahay furiinka u soo dajiyay waxay ahayd markaad la isdhibaateeyo inta la isdili lahaa ama la isku cadaab tagi lahaa ina duurkaas weyn banaanka in la kala maro gabadhi Soomaalidina waa maquusato nafteeda ma jeclo kalsooni ma qabto ilaahay kuma xirno haduu qofka muslimka ilaahay uu ku xiran yahay sax u aaminsan tahay qalbiyan kamaysan walwasheen cunug iyada ay dhashay waxay siin lahayd irsaaqad ay siin lahayd kamaysan walwasheen waayo qof walbo bil aadan adduunkan joogo markuu calooshii hooyadiis iyo aabihiis ku jiray ayaa waxa loo qoray wuxuu cuni lahaa wuxuu cabbi lahaa wuxuu xirani lahaa meeshuu lugta dhigi lahaa waxa soo dhan way qoran tahay kamay walba harteen haday gabar isku kalsoon tahay nafteedu aaminsan nafteedu ku qanacsan nafteedu jecel kalsoonidu laga soo dhisay hooyo iyo aabo maartay sharaf iyo qiimo iyo jacayl fara badan soo siiyay inay boqoro tahay la soo fahansiiyay maartay diin iyo maadi laga soo dhisay haday tahay nin muu gumeysteen muuna abiyuseen muuna silciyeen macnaha diinta haday gabar fahansan tahay waajibku ilaahay saaray iyo waajibku ilaahay ninka u saaray iyo waajibka iyada ay ku leedahay ay barato gabadhaasi nin muu abiyuseen laakiin maanta waxa ciil ah gabar walba inay gabar kale u noosha bal heerka maanta gabdha Soomaali hadaan nahay cadowtinimada dhaxdeena taalo gabdhihii maanta waxay u nool yihiin cambaro amay ku maqashaa cambaro hadii lagu fara cadowgaaga heblaayada cadowgaaga ahayd naagii cadowgaaga way kugu weersanayaan stress iyo walbahaar isku gelinaysa war adoonan gurigaaga iska burburinin ninkaagana iska furin bad xaqaaga dhacsan kartaa wuxuusan ilaahay raali kaaga ahayn in lagu sameeyo naftaada raali ha oga noqonin waajibaadku uu ilaahay ku siiyay uu ilaahay ku saaray ka soo bax dulmi uusan ilaahay raali ka ahayn lagu dulmiyana ha qaadanin
marka intaas uga baxo taasi oo u soo noqda gabdhaha Soomaali walaalayaalow gabdho walaalayaalow haddaadan gabadhan walaashaada ah oo xanuunsan qaaday depressionka horta waa isku buuqin qof uu isku buuqay oo isla hadlay waay maskaxdiisa culays badan soo fuushay waay mental health-ga lagu sheegay wuxuu ka mid yahay xanuunaha caadiga caawa coronavirus haduu kugu dhac maxaa sameynaya ay neefta kugu dhagto emergency baa tagaysaa kan waa sidaas oo kale waa like that depressionka lagu sheegayo haddaad aragtid gabar walaasha oo dhibaataysan oo murugaysan oo maaragtay xanuun iyo culays fara badan aad ka aragtid walaalay dhaxda u xiray caabi walaalay haddaad guriga kasoo xaaqi kartid oo vacuumi kartid oo dharka usoo dhaqi kartid oo ilmaha maalintaas aad ka seexan kartid walaalay u samee haddaad u sameyn karin walaalay afkaada ka qabso caytintii aflagaadada walaalay ka daa afkaada ka qabso caawa gabadha Soomaalida haddii la furo naag caawadan haddii la furo dariskeeda ku sheekaysan naag kala ku sheekaysan tii ay hadda ka hor taqaanay ahayd tii in adeerteed ahayd tii qabiilkeeda ahayd wixii lagu furay qabtaa araajo ahayd dhusuqlay ahayd way qayli bandeed ninkii cuni jirtay ninkii saan yeeli jirtay ninkii gabadha furayba waa ceeb ka saleen ninkii gabadha furayba waaba ceeb ka saleen wixii lagu furay qabtaa naag kala dhahayso stress bay qaaday way isla hadashay ilmo xanuunsan bay haysataa gabadha maanta ilmaheeda ay xanuunsan yihiin hadday banaankaas ilmaha ula soo baxdo hoosaa la iska qaniini naa hadduu ilaahay ilmo caafimaad lagu siiyey oo lixdooda lixaad qabaan oo hadlayaan oo caafimaad qabaan naa ilaahayga waaxidka weyna jacayl uu gabadha kaa jecel kuumuu siinine adigana wuu ku imtixaamay iyadana wuu imtixaamay adigana wuu ku imtixaamay haddaad aqli iyo maskax leedahay gabadha ilmaha ay ka xanuunsan yihiin garab istaaga ilmaha la qabta caabiya macaawin kartid soomaha afkaada ka qabso afkaaga laba taaka ka saar guriga islaameed markaad imaato kursigaaga ku fadhiiso iridaas ka bax daah noocaas u xirnaa roog noocaas u yaalay luuqaas kabaa ku jirtay luuqaas saas u ahaa ilmaheeda saasay ahaayeen kanay ahaayeen naa indhaha allah kaa soo rido kuma dhihi kariye guriga islaameed iyo xaafadaha islaameed markaad imaato ma tihid maaragtay qolo loo soo diray guryaha inay baaraan ma tihide afkaa intaa laba taa ka saarta gurigaas salaanta ku imaatay edab ooga baxa gurigaas guri dhaqmanayo oo ilmo iyo hooyadood is haystaan ama xaar ha siiso ama maartay waxay rabtaa siis iyada ilmeed kursanaysa gurigeeda haysto oo xanuunsan oo iyada stress hay haddana xankaada banaanka ka maqleen xantaada haddana banaanka ka maqleen haddaad caawin karin afkaada ka qabso gabdhaha Soomaaliyeedo waxaan dardaaran naftiina isku dardaarminaya cadowtinimada dhexdeena ku jirto intaan iska saarno gabar walbo dhibaataysan oo walaasha markaad aragtid u istaag oo caabi oo daawooyinka qaada dheh oo dhakhtarkaaga la kulan dheh oo walaasheedii hadduu maanta stress iyo depression aad dareemaysid walaasheedii dhakhtarka aad sida lagu haayo u sheeg dhakhtarku wax buu garan daawooyin buu ku siin ilmaha lagama qaadanayo maartay mental health-gan lagu sheegayo wuxuu ka mid yahay waa adigoo maanta coronavirus kugu dhacay ama maartay typhoid kugu dhacay xanuun kugu dhacay markaa xanuunsatid soo dhakhtar ma aadaysid waa like that laakiin markay ilmihii kaa dayacmaan xanuunkii kugu ziyaado ilmahaagiyo rafaadsan ilmahaagiyo kaba kala nooc qabo ilmahaagiyo diif ka muuqdo gabdhahaagiyo timaha u galaamneen dayac ilmahaagiyo marka dambe aa gacan u qaada markii aad iskuullada geyso lagu arko dhakhtarku u arko markaasaa lagaa qaadan laakiin haddaad isbitaal tagtid ood xanuunkaaga sheegatid oo lagu daaweynayo ilmahaaga lagaama qaadanayo buufiska iska daaya gabaraa maanta qabri ugu jirtaa ilmaheygaa gabar baa caawa qabri ugu jirtaa ilmaheygaa laga qaadan ilmaa laga qaadanay ka fikiraysay maantana waa hooyo la-aan qadar rabbi bay ku dhacday ilaahay baa qadire intaasayna teeda ku ekayd laakiin waxaan doonaynaa inaan iswacyo gelino isgarab istaagno is-support gareyno cadowtinimadii xaasidnimadii iska daaya gabadhi cunug xanuunsan haysato caawi gabadhi stress iyo depression haysto caawi xinka iyo xaasidnimadii iska daaya damiir yeesha ilaahayga waaxidku weynaa wuxuu yiri markaad dhulka iskaga naxariisataan ayaan samada idinkaga naxariisanaya gabar walaashayo umula u tagaysa gabar iyadaba xanuunsan aad arkayso oo isku buuqsanaa gurigeeda tagaysa markaas waxaad ka sheekeynaysaa gurigeeda siduu ahaa daahi u xirnaa ilmaheeda siday ahaayeen qaarkiina kamid ah oo laba bari intay qurbaa imaadeen ESL class aade oo English ka bartay oo xitaa waxa la sheegay
marka idinku sir qarsadeen ee maartay dhibaatadooda dhibkooda idin sheeg xitaa waxa la sheegay qaar ugu wacay qolada iskoolka ee maartay dhahay ilmahay gabadhan disha ilmahay saayasha iyo ilmahay kan yeesha ilmahay kuusasha oo been ka sheekay war ilaahay ka cabsada waa adduunka waa laba bari war adduunka waa laga tagaya war gabdha Soomaaliyeed oo ilaahay ka cabsada war qabri baa idinka dambe war isku naxariista war dumar kala fahmi karo war gabdhaha Soomaali cadow gabadha Soomaalida ma laha aan gabar kale inin aanan ahayn gabadha Soomaalida caawa hadaad weydiisid dhibka ugu weyn ee adduunka soo qabsaday ama waxyaabihii ay soo martay kaaga sheekayso waxay kaaga sheekeynaysaa nin soo bahdilay oo soo silciyay biil aan rafaad abuse dhan ku soo sameeyay iyo gabar kale oo saaxiibadeed ahayd oo soo dhibaataysay war ninka maanta naag haduu guursado tii uu guursado ma ahe tii dariskaada ku dhibaateynayso waa la guursaday wixii lagu la guursaday qabta caawa hadii lagu furo naag kale idoo la gaaray mid dariskaada mid dadku ugu dhabeedaale waa la furay wixii lagu furay qabta ninkii waa ceeb ka saleen sharaf buu leeyahay qiimo uu leeyahay war gabdha ilaahay is garab istaagno gabadha dariskaada ka warhay saacadan ka bilaawad hadaad ahayd gabadha kale dhibkeeda ku wiirsato jooji haday ku dhahdo gabar walaasha afkeeda mar ka soo maqashid waa isdili raba walaasheedii kaxee meel fadhiis ama gurigaaga gee ama gurigeeda la tag isla markiina 911 oo guwac please waa ku bariya isla markiina 911 oo guwac ama 988 waa lambar u xil saaran qoladan maartay mental healthiga markaad 988 markaa wacdi 988 markaa wacdi wuu garanaya isla markii inaad ka hadlirtid waxyaabaha mental healthiga ku saabsan markaas la hadlaysa waxa leedahay qof waxaan hayaa isdhahay waa isdilayay maxaan ku subiya markaas hadii ku dhahayna waxay ku dhahayaan ama markaas maartay waxay qaban lahayd ay ku sheegayaan walaalahaygiyo isgarab istaaga gabdha Soomaaliyeed oo maanta idinka isku baahan idinka isgarab istaaga gabadhi walaashin maanta waxay wax la hadli laadahay oo wax la sheegan laadahay gabdhaha maanta waxa wada dilaa silcinay waxa waaye ma hadli karaan naagta cadaanka markay depression qaado banaankaas istaagaysa way qaylinaysa qof kale u tagaysa dhibkii sheegaysa maanta qof ay waramaysa laakiin أنا كي أول رمنا يا وحش شجنا تا أمانت وحش شجت بريجت كي تاجنت وقعين وحاكلون ربعنا إيدي الشجو صلي النبي لا حول ولا قوة إلا بالله معلم والبأس كودينا لهدت كن الله حول ولا قوة إلا بالله كن صلي النبي واسوقنا هاي مان صرنا تلفون بافيرنا سوشيال ميديا كو مشغول سنة هاي ميك شور إن تصلي النبي مالن تبكون جرعة لهدت لا حول ولا قوة إلا بالله أتكون جرعة لهدت أنت سداودد ويأتكانسا إنه كوجود على depression أما إسلاح هذا الشيء ويأتكانسا عليس والبقى كسوف لنا إلهي الواحد كوينا آدي بكوجو فضينا يا مر والبنا مارت عليس والبقى كسوف لواتك قولي سنة واتك بحيسا قيرودي أصحابي قري عافماد إذا كنت تجيا قبلها والله هيك الصوماليات نفتيني بوحنا قدر دار منها يا إنا والله يالو عدوتني مدان يريبادني مدان يجاهلني مدان إنه أسكو أرجني أو حماتة أسكو أرجني إنا أسكو بدلنا حريص أو نسعامنون إسقرب استاجنو أو قبل كلو ولا شيء هذا دباتيسن أتسودت قبلي ما توح مشيئا كران هذا الكيباكو حرمي gabar kale wax uma sheegan karto shiino zina bari ku cayn markaad isku dhacdaan banaanaha isku aflagaadiisaan marka walaalahayga sida ay caafimaad kaga tagaya nafteeda waxaan ku baraarujinayaa inaan isgarab istaagno oo iscaawino oo heel iyo hoo isku la garab istaagno gabdho walaalo ah oo qalbi isku furan aan noqono peace and love